qisadani waxay la magac baxday $1 mucjiso ku iibso. Aan eegno waa qiso aad u qiiro badan nala tusaysa wax walba oo wanaagsan. Waa qoys sabool ah oo ka kooban hooyo, aabe iyo wiil iyo gabar ay dhaleen. Wiilka ayaa aad u xanuunsaday. Baaris kadib waxa la ogaaday in xaaladda wiilku uu ku jiro ay khatar tahay, una baahan yahay qaliin degdeg ah. wiilka oo buro uga taalay madaxa waxa lagama maarmaan noqotay in lagu sameeyo qaliin halistiisa leh oo nolol iyo geeri u dhaxeeya. Sheeko dheer oo dhaxmartay aabaha wiilka iyo dhakhaatiirta kadib ayuu aabihii guriga ku soo laabtay isagoo murugaysan. Xaaskiisa ayuuna u sheegay xaaladda wiilkooda soo food saartay iyo inay khasab tahay in lagu sameeyo wiilkooda qaliinka lacagta ku baxaysana ay aad u fara badan tahay, sidoo kalena ay mucjiso u baahan yihiin si wiilkooda ay u badbaadiyaan ama uu badbaado. Gabadhoodii yareed ayaa maqashay hadalkooda, isla markiiba waxay u carartay qolkeeda. Boorso yar oo ay lahayd ayay lacag ka baartay, waxayna heshay $1 oo kaliya. $1 ayay la soo carartay, waxayna soo aaday farmashigii ugu dhawaa xaafadooda. Waxayna la kulantay iyadoo dhakhtarku qof la sheekeysanayo. In cabaar oo ay sugaysay kadib markii ay daashay ayay dhakhtarkii u timid iyadoo qaylinaysa, ayayna $1 miiska u saartay, waxayna sii raacisay mucjiso igu iibi. Dhakhtarkii ayaa yidhi, soo ma u jeedid inaan mashquul ahay oo aan la sheekeysanayo walaalkayga oo aanan muddo is arkin? Markaasuu haddana weydiiyey, mucjisada aad rabto waa noocee? Waxay tiri, ma aqaan, laakiin hooyaday iyo aabahay ayaan maqlay oo ku sheekeysanayo in wiilkeena uu mucjiso ku badbaadi karo. $1 ma ii goysaa mucjisadaas? Dhakhtarkii ayaa ugu jawaabay, haa, $1 waad ku iibsan kartaa mucjisada, balse marka hore waa inaan walaalkaaga soo arkaa. Dhakhtarkaasi wuxuu ahaa Dr. Carlton Armstrong, waana dhakhtar caan ah kuna takhasusay qaliimada neerfayaasha. Gabadhii ayuu gurigooda u soo raacay, wuxuuna la kulmay waalidkii, wuxuuna u sheegay inuu isagu qaliinka ku sameynayo wiilkooda. Maalmo kadibna waa uu ku sameeyay qaliinkii, waana uu guulaystay qaliinka. $1 ee gabadhu siisay kaliya ayuu ka qaatay, kadibna $1 ayuu ku dhajiyay derbiga xafiiskiisa, wuxuuna ku hoos qoray, $kani waa qiimaha mucjisada. Sheekadan buugaag badan ayaa lagu qoray, luqado kala duwanna waa lagu turjumay. Waxayse tusaale u tahay siday carruurtu u jecel yihiin walaalahooda kale, marmarka qaarna ay naftooda u hori karaan. Dulucda sheekadani waxay tahay in carruurtu ay aad u qalbi fiican yihiin. Hadday arkaan qof baahan waxay jecel yihiin inay wax siiyaan, hadday arkaan qof bukaan oo xanuun hayana waxay jecel yihiin inay xanuunka la dareemaan. haddaba intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa fiidiyogeeni maanta. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. fadlan haddii aad ka hesho muuqaalka inoo la garay kadibna la wadaag walaalahaaga si ay ayagana uga faa'iidaystaan. mahadsanid.